أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu ku dhex jirnaa bilowgii tafsiirka quraanka kariimka. waxaanu soo qaadanay dhowr cashar oo ka hadlaya amuuro kala duwan oo quraanka ku tacalluqaya. haatana waxaanu qaadanaynaa casharkeeni sagaalaad. casharkeenan sagaalaad waxaan uga hadli doonaa فيما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله. waxa ku yimiday oo ku soo arooray tafsiirka quraanka fadligiisa iyo ahalkiisa, dadka mufasiriinta ah fadaaisha ilaahay subxaanahu wa tacaala gaarka ah uu siiyey, maadaama waxa ay fahmeen oo ay fasirayaan kalaamkii ilaahay uu yahay, iyo waxa weeye tafsiirku fadliga uu iska leeyahay, ayaanu maaratayaa wax yaroo nubdo ah aanu ka soo qaadanaynaa. culimadayna waxay yidhaahdeen ahlul cilmiga ahi: wa ama ma jaa fi fadli tafsiiri can asaxaabati wataabiciina famin dalika. waxaa markaasi tafsiirka waxa ku yimiday oo ku soo arooray saxaabada xaggeeda ka yimiday iyo taabiciinta. macnaha waxa weeye tafsiirka fadliga uu iska leeyahay. asxaabu rasuulilaahi ayaa maaragtay ka hadlay. waxaana soo qaadanaynaa qowlu saxaaba, wixii ay maaragtay saxaabadu ay ka yidhaahdeen tafsiirka quraanka fadligiisa iyo ahalkiisa, ayaanu bacdi kamida ayaanu soo qaadanaynaa. maxaa yeelay wax kasta oo lagu dhex jiro waxa ay yihiin in la ogaado ayaa loo baahan yahay. waxaa arrintaas marka haddaba kamid ah sayidina cali ibnu abi aalib radiallahu canhu ayaa maalin wuxuu ka sheekeeyey oo ka waramay saxaabiga la yidhaahdo jaabir ibnu cabdillaahi. sayid cali jaabir wuxuu ku sifeeyey cilmi ayuu ku sifeeyey, oo sheekadatan hadda uu ka sheekaynayo waa aqoonta markaasi uu leeyahay, oo kitaabka ilaahay macnihiisa oo uu leeyahay ayuu sayid cali ka waramay, asagoo markaasi fadliga uu leeyahay iyo sharafta uu mutaystay saxaabigaas jaliilka ah oo la yidhaahdo jaabir ibnu cabdillaahi ka sheekaynayo, iyo waxa markaasi waxa weeye uu ku mutaystay fadiiladaas uu ku mutaystay. markuu sidaas uga sheekeeyey, asxaabta bacdi kamidana ay dhegaysanayeen sayid cali, ayaa nin raggii dhegaysanaya kamida sayid cali wuxuu dhahay: juciltu fidaa'aka, furashadaada waqlayga yeele, tasifu jaabiran bilcilmi wa anta antow dhah. jaabir ayaad cilmi ku sifaynaysaa, adiguna adigaa tahayo caliyo maaragtay aad iyo aad u cilmi badan ayaa tahayo adaaba cilmiga lagugu og yahay, oo hadda mufasiriintii waaweyneeda. marka balka waran arrintaas ayuu dhah. maxaa yeelay asxaabta nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii wanaagsanaayo salafu saalix, dad markaasi isxaqiraaya ama isxasdaaya ma aysan haynin. dadkan isxaqiraaya oo isxasdaaya waa dad markaasi waxa weeye iimaankooda uu daciif yahay, waa dada aqoontoodu ay yar tahay. qofka markuu waxasdo oo qof dhigiisa uu xasdaayo, waxa uu yahay waa qof liita weeye. qofku hadduu isku kalsoon yahay oo ilaahay allihii abuuray uu ku kalsoon yahay, oo nicmada ilaahay siiye oo ku shukrinayo, cid uu xasdaayo ma jirto. xasadkuna waa shay madmuum ah. marka waxa ay yihiin
ayay isku sheegi jireen. nin walba asagoo aqoontu ka badatay ayuu ninka kaloo walaalkiisa wuxuu u ictiqaadsanay inuu ka aqoon badan yahay asaguna waxba uusan ogsoonin. dadka wanaagsan oo da'biga saalixiinta iyo ahlul cilmigu sidaas weeye. laakiin qof markaasi asagii jaahilah oo waxba ogeynin inuu wax xaqiro ama wax ka sheego waxa u geynaya la dhihi karaa jahliga ayaa u geynaya. marka markii uu dhahay Sayyid Cali uu ku dhahay ju'iltu fidaaka tasifu jabiran bil ilmi wa anta Sayyidina Ali wuxuu dhahay innahu kana ya'rifu tafsir qawlihi ta'ala inna alladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad. wuxuu dhahay Sayyid Ali wuxuu dhahay ninka la yiraahdo Jabir wuxuu yaqaanaa hoo dhahay ilaahi qowlkiisa tafsiirkiisa uu yaqaanaa oo waa ku tagi doonaa hadii ilaahi aayadaas waxay ku soo degtay iyo tafsiirkeeda insha Allah ta'ala suuratul qasas aakhirkeeda ku tagi doonaa. inna alladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad waa ku tagi doonaa hadda inaan ka sii hadalno ma ahan insha Allah ta'ala booskeeda loogu tagi doonaa wax badan waa la dhageystay. markii nabiga kaleey salaam maka uu ka tagayo maka uu hiloobay aayadii lagu soo dejiyo waayo. faradadan bimaana waxa weeye anzala waaye. maxaa yeelay faradka ayaa macna badan ku yimaada oo marka bimaana nuzuul oo ku imaanayo kala weeye. Allah kugu soo dejiyay quraanka ayaa ku celi doona marjic macaadkaasna waxa laga wadaa aakhiradii lagama wada saan ku tagi doono maka ayaa laga wadaa oo sanadkii maaratay 13 sano nabiga kaleey salaam bicsadiisi markii laga joogo markaasi ilaahay u idmay inuu ka heshoodo halkaas isagoo dhibaato fara badan lagu haayay insha Allah ta'ala waa ku tagi doonaa dhibaatada halkaas ka qabsatay iyo beledkiisa oo u hiloobay. markaas waxa weeye wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku yiri oo uu yaboohay inuu dib ugu soo celi doono hadda maslaxa ay tahay ayadaas ayuu markaas uu Sayyid Jabir si cajiiba u fasirayay. marka Sayyid Ali tafsiirka ayadaas ayuu aad iyo aad wuxuu ugu amaanayay Sayyid Jabir ugu amaanayay. imaamka weyn oo marka oo mufassirka oo tilmiidkii ibn Abbas Mujaahid oo mufassiriinta waaweyn kamida ayaa waxa uu dhahay أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. وأوداي مجاهد خلق إلهي كان لو جعيل بذيه الله حقيسه ومتك أوغو أقوان تبضانه وحل وسو دجيي وقرآن كاس أيو كوضا قرآن كإلهي سبحانه وتعالى وسو دجيي متك مركاس أوغو أقوان تبضانه كاسا إلهي خلقيسا لو جعل يهوده سببتو wax iska cad weeye markaan wax badan soo mareenay fadaa'il quraan hada quraankii oo markaasi fadligiisa wax ka saka fadli badan wa fadlu kalaami illaahi ta'ala ala sa'iril kalaami ka fadli illaahi ala khalqihi rasuulku alayhi salaam ahadiisa soo aanu ku soo marnay fadaa'il quraanka ilaahi kalaamkiisu sida uga fadli badan yahay intii kalaamuhu ka soo harta waxay la mid tahay oo rasuulka kaleey salaam sida ilaahi khalqiisa uga fadli badan yahay. meeshaas marka waxa weeye cid walba ku aamusaysa maxaa yeelay Allah subhanahu wa ta'ala wax markaasi fadaa'ishiisa iyo sifaadkiisa iyo koobi kala iyo farqiga asaga iyo makhluuqa u dhaxeeya cid ogaa kartaa ma jirto wax aqliga ka baxsan weeye. quraanku asaguna waxa weeye fadaa'isha uu iska leeyahay wuxuu ka baxsan yahay aqliga makhluuqa uu ka baxsan yahay maadaama kalaamki ilaahay uu yahay oo Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa uu ka yimiday afdalul khalqi ala al-idlaaqna lagu soo dejiyo rasuulka kaleey salaam loona soo dejiyay ummadan ummatul muhammada oo ugu khayr badan ummadihi ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunkan uu ku abuuray. marka sidaas ayaa waxa uu dhahay mujaahido taabiciinta kamida ahabul khalqi ila Allah ta'ala a'lamuhum bima unzila. waxa uu ka helo dhahay
asaguna taabiciga jaliilka Xasan al-Bisri oo asaguna mufassiriinta waaweyn oo aad maaratay ahlu tafsiirka loogu tiriyo wallahi uu dhahay ma anzala Allahu aayatan illa ahabba an yu'lama fi ma unzilat wa ma yu'ni biha ilaa baan ku dhaartay ayuu dhahay Xasan al-Bisri ilaahay aayad soo madajino dhahay ilaa uu soo dejiyo waxa alla uu jecel yahay in la ogaado aayadaas wixii lagu soo dejiyay asbaab nuzuulka iyo arrimahaas waa ku tagi doonaa oo aayadan wax ay ku timiday waa in la ogaada iyo waxa loola jeedo oo markaasi tafsiirkeedu waxa uu yahay waa in markaasi la ogaadaa weey hadda quraanka hadaan mujarradkiisa kaliya iska haysano oo waxa weeye wax uu yahay meel uu ka yimid iyo aanan waxba ka ogeynin dhibaato weey taas markaasi la rabaa dadka muslimiinta ah inay kitaabkooda iyo culumtiisa ay ku dadaalaan culumta kitaabka oo lagu dadaalo wax kasta ayada ka kaafinaysa wax kasta oo cilmi nooc kasta noqdo teknolojiya ha noqoto wax kasta ha noqoto asaga hadii lagu dadaalo lagu ijtihaado wax kasta ayaa laga soo saaraya marka waxa loo baahan yahay in la ogaado aayad kasta waxa lagu soo dejiyay iyo waxa macnaheedu uu yahay waxa ay ka hadlayso in qofka muslimka ah inuu ogaado al raba imaam shacbi ayaa waxa uu dhahay imaamka la yiraahdo Masruuq ayaa waxa uu aaday magaalada Basro asoo dhul fog markaasi ka tagayo kullayba maaratay meel kale ayuu ka tagayo ama Madiina ka tagay ama maaratay meel kale ayuu ka tagay ama Baghdad uu ka tagay Baghdad iyo Basra waa isu dhow yihiin waa isku hal wadane meel fog meel ayuu ka tagay waxa uu sameeyay markaasi irtixaal ayuu sameeyay waa u safray ilaan cilmigu in loo safraa la rabaa rasuulkeena waa tawdaa alayhi salaam udlubu al-ilma walaw fi arli Siin oo rasuulku bariga fog jayna dhexdeedaba Allah ka dhigay cilmiga dalba oo rasuulku alayhi salaam meesha uu jira ka raadiye cilmiga in loo safraa la rabaa oo la raadiyo oo lagu dhibtoodo ayaa loo baahan yahay waa qofka markaasi qalbigiisu dayib uu yahay oo himada caaliyada iska leh ayaa cilmiga raaja cilmigii oo markaasi halkan iska yaalo ayaa waxaad arkaysaa bacdu naas waxba ayagoon danayhaynin ilaa qalbigooda qalbi aan fiicnayn aa'imadii waaweyneedo ahlul cilmiga ahayd safar ay u geligi jireen hal xaraf tafsiirkiisa ama hal aayada fasirkeeda waxyaabo yaro ishkaal ka galay ayay u safri jireen oo dhul mafaawis ah oo aad bahgooya u ah oo dhib badan iyo masaafo aad u fogo baciida kumanaan kiiloomitir ay u safri jireen ayagoo waliba hadda gaadiidka waqtigaan la haysanin diyaarad raacayn oo markab raacaynin oo waxa weeye baabuur raacaynin geel ay ku safri jireen in saadkooda saartaan sida markaasi waxa weeye uu ula weeyahay ilaahi subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa cilmiga dalabul cilmigu sida uu ula weeyahay safar baciid ay gali jireen waxa marka ilaahay diintooda ugu barakeeyay waxaas weeye marka waxa uu dhahay dhika la yiraahdo Masruuq ayaa waa irtixaalay Basra ayuu tagay wuxuuna u aaday halkaas ugu safraya aayad tafsiirkeeda aayada tafsiirkeeda halkaas u aaday hadda anagana waxa anaha dhaaysa qofkan dadkan masjidka asaga ku dhawo codkiisa oo maqlaayo ayaa lagu akhrinayaa cilmiga lagu akhrinayaa ama tafsiirka waa la akhrinayaa ama ahadiisa rasuulka alayhi salaam ama fiqhi ama aaladi culumta islaamka ayaa la akhrinayaa waxa laga yaabaa inuu codkaas oo isiraado muxuu dhagaha kaaga jabinayaa halkaas isagoo markaas waa iska akbaraya markaas wax yaro xaqiir ah adduunyaa ayuu sii gabgableeyahay waqtigiisa inuu wax ka gooyo ma doonayo umrigaas umri lagu khasaaro noqonaya umrigaas qofku waa khasaaraya umri oo ka shalaayo ayuu noqonaya qof walba inta waqtigu uu la siman yahay waa inuu wax bartaa oo dadaala ilaa wax barashada iyo waqtiga la siinayo culumtu
ووينين لوينين أيوه أقونت إلهي حقي سكتمدي بل هذا فير هل آيات أيا مركز وسفر كاسو قلي مركا آيات مركو تجي أيوه ده بصرة وتجي أيا وحال ويري مركز إن الذي يفسرها رحل إلى الشام وهل يري آيات ننك فسر أيوه يقيني أو تفسير كذا اللي قدم به هو جرا هو هذا أهل الشام وهذا يسوون سفر كلو قلي فتجهز مركز هو حوي مر لبعض أيوه ديار كرو مركز مسروق ورحل إلى الشام مركز الشام وأررتي حتى علم تفسيرها إلى تفسير كذا وكصوبرت ما قص فرو مرة يا مركز هل آيات أيوه مركز مع هذا حدنا أديو أدو هلي كره قرآن كده ما أنتي سول وفسره أيات دق جلب أسيهين تاس وحوي مركز هو قف ضد أن دين تبضان كلهين وي وحي عنان كليه وجبجبيه هاي وروح الله رب العزة بحيه سبحانه وتعالى دين توقت هلا سيو علمك وقت هلا سيو أو حلا برتو جاهل اللي كان والله قش لايا وحلو جبجبليه الدنيا ذانه وحوي الندامة والله قش لاي دونا مدح نمذا اللي قد بجبجبليه والله قش لاي دونا رسول كان هو عليه الصلاة والسلام إنكم ستحرسون الأمارة وستكون ندامة يوم القيامة أمير نمايا مدح نمايا تكون ذلك دونتين وداي آخر زمنك واتنين والبقى وحصلها مروى يا وحوش يا قايته لكن ما أنت قيام وكش لا دونتين ورسول وعلى قش لا يا حقيقة تاسوي سوته الجور إيو مارت يا فسق إيا بادل إيا وحكس أيا الربا إن له يرون ساعد يروقف كنول يا إنه وحكال لقو دونيا تاس مركه وحوي ما أنت قيام شلايتا ودنبيس ومع ذلك تاس أي دلو حوي جهل أيزوه دنا لا جرو قفك حتى هدي وح أمير أو كنقضه وح شرعي هو قوة إيه وح قونا أوصل لهين أيضنا وحوي مصيبة كلوي مركه مسروق آيات تفسير كذا أيوه صاهلي مركز أيوه اسك صالبته سفر كيس هذا دبوا صالبته أكرم أيا مركز حوله هاي إلهي يقول كيس عز وجل آية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يترك الموت فقد وقع أجره إن شاء الله تعالى سورة النساء وتيدونا أيضا نسب نزول كذا يوحي كتم ذي وأقول طلبت اسم هذا الرجل ننك ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله لليه ننك اسمه عيسى أيان هذا وده 14 سنة طبعا إيه أفرتنا مالك سأنتقاي وريا إيشيغ عندها أي تفسير كده لكن يكسو دكتي حيلا وحا الله رباه وحا يكسو دكتي إلا أقاده أي الله رباه حسن البسر سيدو هدنا دهي ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها تاس أيو مركا سور هاديناي مركا وحا أوداي عكرم عالم ويناهي ومفسره waxaan raadinayo dhahay maartay aayadaas qofka ay ku soo ninkaas magaciisa ay ku soo degtay hatta wajadtuhu ila an ka helo bugi dambo 14 sano ayuu markaas u raadinayay taas marka waxay ku tusinaysaa dalabka cilmiga iyo fahamkiisu waqti sahlan aysan ku xasilayn inaan wax laga daalay aysan haynin mar walba inay wax ku dhiman yihiin oo inaad wax raadsatood kamilata la rabo hadda waxa weeye waqtiga kan waqti ma alxamdulillah culumti la aruushay la dadaalay kutubta ay ku taalo maartay wax walba lagu fududeeyay ayaa la jooga waa markaasi raashin la soo bisleeyo iska yaala waayo cunid kale iska rabo laakiin dadka cunaya la laayahay markaa dadka cunayay ayaa la laayahay marka waxaan helay oo dhahay 14 sano ka bacdi ayaa ninkaas magaciisaan helay ninkaana waxa la dhihi jiray sida uu sheegay ibn abdul barri waxa la dhihi jiray lamrata ibn habib allaysi waa ku tagi doona insha Allah taala aayada marka tafsiirkeeda aan gaarin ayaa waxa ay ku timiday iyo arintaas ayaa ku tagi doona macallu shaahidka wuxuu yahay sida uu loo weyneynayo quraanka tafsiirkiisa barashadiisa
iyo dadkii asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo taabiciintii dadkii wanaagsanaa salafu saalix siday maaragtay u dalbi jireen barashada tafsiirka quraanka kariimka ay u dalbi jireen iyo sharafta ay ku lahaayeen maxaa yeelay waa kuwa dadka ugu sharafta badan weeye sida hadda maaragtay aanu soo maraynay waxa uu dhahay Abdullah ibn Abbas حبر عالم الأمة مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعني إلا مهابته فسألته فقال هما حفصة وعائشة فيري مركز سيدا مركز علمك لو ضلب جري oo qofka waliba caalimka ah oo mas'alada yaqaan looga heybay sajray Abdullah ibn Abbas oo xabru caalim ummah ninki maartay nabi u duceeyay Allahumma faqihu fi diin wa alimhu ta'wil ayaa rasuulku dhahay alayhi salatu wasalaam asagoo sidaasa ayaa waxa ka maqnaay aayadaas sabab nuzuulkeedii ayaa ka maqnaay marka waxa weeye waxa uu dhahay ibn Abbas 2 sano ayaan joogay uu dhahay anigoo doonaya inaan Sayyid Umar su'aalo labada naagood oo nabi kaleey salaatu wasalaam isugu kaalmaysay insha Allah ta'ala diila suuratu tahrim uu tagi doona suuratu tahrim ayaa uu tagi doona lima tuharimu ma halallahu ila dhowr aayadood markaasi aayadaha sababta ay ku soo degeen iyo wixii meeshaas ka dhacay marka labadii markaasi waxa weeye hawshaas maam gashay oo nabi kaleey salaatu wasalaam arintiisa fidiyeen oo nabi oo ka xumaaday kaleey salaatu wasalaam haweenkiisana ah labadaas heerkay ahaayeen ayaan maartay Sayyid Umar weydiyo yay ahaayeen macnaha waxa weeye ma inuu weydiyo raba laakiin 2 sano ayuu markaas soo joogay asoo doonaya inuu weydiyo mar walbana hada Sayyid Umar waa la kulmaayay laakiin waxa uu dhahay ibn Abbas ma yamna'uni illa mahabatuhu waxa ii diiday uu dhahay inaan weydiyo heybeysi aan ka heybeysanaayo Sayyid Umar oo aan ka cabsaayo maxaa yeelay ibn Abbas markaas uu wiil yar oo dhalinyaro ahay markaas waxa weeye ninkaas weyn oo sheekha oo saxaabiga jaliilka waxa weeye marka oo ka heebeysanaya inuu weydiyo ka cabsaha markaas uu la warwareega bal fiiri markaas sida markaas uu jecel yahay barashada cilmiga iyo tafsiirka barashadiisa oo asaga markaas uu yahay xibrigeed uu yahay soo jecel yahay fiiri iyo soo u raadinayo wax ciyaar ku imaahayo maahan sida uu raadinayo bal fiiri marka waxa ii diidayo dhahay heybeysi aan ka heybeysanaayo 2 sano ayaa markaasaan hadba mar walba markaan weydiin as'ilaadan ka cabsaayo dhahay fasaltu maalima uu waxa way isdhiiriyay ayaan weydiiyay dhahay markaas ibn Abbas ma sha Allah markaas uu dhahay huma Hafsatu wa Aishatu waa labadaas kalimaday arintaas haweenkaas oo maartay ay ku soo degtay aayadaasu waxa weeye waa labadaas oo dhahay Aisha iyo Hafsa waa in yar ka waran in yar kalim oo kooban waay oo aan hadda markaasi wax culaysa iyo midna aanan ku haynin hada waxa weeye cilmi badan oo intaasoo culaysa kugu haya fahamkeedu laguna baraayo si markaasi aanu cid waxba kaaga doonayn ayaa bara laga laayahay markaas sida marka asxaabu rasuulilaahi ay cilmiga u raadi jireen ahalkiisana ay uga heybeysanayeen waxa la rabaa in ahalkiisa laga heybeysto loo baahan marka adigu ahalkiisa ka heybeysato oo cilmiga ka heybeysato oo kula weynaado ayaad adna waxaad noqonaysaa qof muhaabahaad naqaysaa qof muhaabaho makhluuqa ilaahay uu ka heybeysto heyba min Allah ka timidna waay inaad in laga heybeysa raadisa iyo taas waxba tarimayso iyo waxaan sameey maartay karaamaad ku gaartida iyo caabidul karaamay dhahan markaas waa mid karaamada caabuda waay
waxa ayaa horena waan uga soo hadalnay xagga ikhlaaska markaasi waxa weeye quraanka loo baahan yahay in markaasi amalka la sameeyo casharadeen horaan ku soo maray si cajiiba marka wax ka sadar ilaahay inay keenaan raba Allah subhanahu wa ta'ala ayaa kugu filan intaad makhluuq ka yibaysan laakiin makhluuqi wuxuu xambaarsan yahay haybadi ilaahay oo markaasi hadda ibn Abbas markuu ka haybaysanayay macnaha ma inuu ilaahay oo kale u tacdiiminayo ma laakiin ilaahay wuxuu xambaarsiyay ayaa la weyn ninka la yiraahdo Iyas ibn Muawiya ayaa waxa uu dhahay masalul ladina yaqra'una alqur'ana wa hum la ya'lamuna tafsirahu kama sali qaumin ja'ahum kitabun min malikihim laylan وليس عندهم مصباح فتداخلهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب لكال إيراد إياس ابن معاوية وهاو دهي هو قرآن كأخراية وحي لمده نو دهي معنه سنة أنقرني واسدا هذا ضدكينا عجمتانو بدنا قرآنك waa akhrinayna laakiin wax uu sheegay ma naqaan waxay la mid yihiin oo la yaclamuuna tafsiirahu tafsiirkiisa aan garanay umaday la mid qoom ay la mid yihiin oo dha qoonkaas oo markaas warqad ay uga timid boqorkoodii habeen madow warqad loo keenay iyadoo boqorkoodii laga wado marka habeen mugdiya waaye waxay ku iftiinsadaan ma haystaan oo misbaax ma haystaan warqad ay ku akhriyaan waxyaabaha boqorka ka yimid inay degdeg ku ogaadaan ay rabaan markaas waxa galay u dhahay argagaxa ku dhacay maxaa yeelay waxa muxtamala boqoradu waxa weeye waxa badan markaas jabbaarnimadoodii in dadkaan markaas u goodinayo ama se hebel iyo hebela gafay hal dila uu leeyahay marka dadka ay ku dhacdo dha argagaxa ku dhacay wala yadruuna ma fil kitaabi waxa kid warqadaas ku yaalna ma garanayaan dadka markaas waxa dhahay quraanka akhraayo macnihiisa garanay qoladaas ay lamid yihiin oo waa dad mugdi ku jira waa dad argagax ku dhex jira ama biri ay dhici karto inay ku timaado oo quraanka ay dayacaan waxa dhahay waa masalul ladii ya'rifu tafsiira midka tafsiirka garanayna wuxuu lamid yahay kama sali rajulin ayuu lamid yahay jaa'ahum bimisbaahin wa nin markaasi misbaax faanus ama nal ama iftiin la yimid oo nimankii u keenay faqara'u ma fil kitaabi markaas ay wixii warqad ku ilay akhristaan marka qofka quraanka tafsiirkiisa yaqaana nuurkiiyo haya quraanka lagu daari lahay ayuu haystaa marka sa quraanka mujarradkiisi hadee wax lagu sheego hadaan la arag waa wax iska madow waay warqad guri mugdi ku jirta waxba looga jeedin mufassirka isaguna waxa weeye wuxuu cadeynaya quraanka ayuu cadeynaya oo iftiininaya wada uu maartay mugdi oo la maraayo adoo markaas waxa weeye waxba wadanin ama gaadiid wata markaas baabuuran lahaynin maartay nal aan lahayn wata waa iska fariisanaysa marka wixina ka faa'iideysameys quraanka daan macnihiisa la garanayn wixii laga faa'iideysa aad u yar yihiin marka hadda waxa weeye intaas waxa noogu eg fadliga tafsiirka quraanka kariimka ahlkiisa halkaas casharaan ku qaadanayna hadda casharkeeni oo sagaalaad intaas uu ku eg yahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.